أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. شخصي agoonnimo wax ku soo bartay oo college ku soo koray markii uu dugsiga sare dhameeyay jaamacad u tagay Muqdisho si uu hayaankiisa waxbarashada heerka sare uu si anba qaado laakiin rajadaas oo dhan waxay ku xirneyd araga markii araga uu waayay oo qaraxa uu aragiisii uu saameeyay ayuu ku soo laabtay meeshii uu ku noolaa booshkii ayadiis ay ku soo korisay ayuuna wali degan yahay sheekadaas ayaan maanta idin la wadaagi doonaa waxaan ku sugnahay magaalada Baydhabo oo maalmahan arrimo shaqo aan u joogay maxamed cali maxamed xaafidul quraan cilmiyada diinta iyo maadiga rabay inuu meel sare ka gaaro balse ay qadartu dib ugu soo celisay buulkii ay ayadiis ku soo korisay waxa uu ku soo barbaaray oo quraanka iyo waxbarashada maadiga kaga gaaray dugsiga sare kuleejada agoonta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxbarashadii tacliinta sare ee jaamacadana waxa uu u doontay magaalada Muqdisho balse maalin kamida maalmaha qarax ka dhacay maqaayad uu 5 sano ka hor ka shaqeynayay ayaa firkii uu ka galay madaxa ku sababay inuu indhihiisa ku waayo maxamed oo isbitaal badan tagay ayaa ugu dambeyntii ka qoostay inuu sidiisii hore ku soo laabto waxa uu hadda ku hanweyn yahay inuu guursado si haddii alla ubad u siiya ay mustaqbalka u hagaan oo oodaha iyo halista hoose uga ilaaliyaan yaraanteeda waxbarashadeeda iyo korsiimadeeda iyo anu horta waxaan ku dhashay magaalada Baydhabo hadda aan joogno waxbarashadeena Baydhabo aan ku soo qaatay ilaa dugsiga hoose ilaa dhexe sare marka ma sha Allah marka waxbarashadeeda waxaan kale ku soo koray college-ka agoonta ku soo koray agoonnimo aan ku soo koray kadib agoonnimadii markaan ku soo koray waxbarashadeeda meesha markaan dhameystay waxaan aaday Baydhabo aan iskaga tagay jaamacada waxaan u aaday Muqdisho منحة meesha ka helay oo lacag la'aan jaamacad kadib waxbarashadeeda iska sii watay marka meeshan waan ka shaqeysanaay Muqdisho markaan tahay jaamacada iska dhiganay meel oo maxaa la yiraahdo Xamarweyne xaruntan SYL meesha ku taalo meesha agteeda maqaaxadan ka shaqeynay oo Fatxi la yiraahdo Hotel Muna agtiisa ku taala meesha iska shaqeysanaay basraaciga iyo buugagteeda qalimaanteeda wixii labiskayga meeshan ka dhacsanaay guriga kalidiisa iska bixin jiray أنا ماشي قالنا شقيسنا قالنا waxbarashada iska wato oo maqaaxidaas Fatxi la yiraahdo hotel Muna agtiisa ku taala ka shaqeysana ba qaraxan la kulmay qaraxa meesha ka dhacay ee taariikhda ahayd sanadkii 2016 ugu dambeeyay November December alxamdulillah markaadii ilaahay meesha dhawaan soo duntay barigaas qofkii joogay oo arkay sab muuqaalkeeda meesha kale waa xasuusan karaa والحمد لله هذه وإله أمركيس ماشي هذا ساس العذاب كل يعني ما راح أجوجي جارتي الحمد لله كل بكلمة جارين لا جد بدنا ماشي كل أنت يعني كل وابد بعد وقتي وحكي لنا يوم لنا والحمد لله هذا في عنا عندها سنبا وحي جاري نيرفها وحي جاري نيرفيا أمريكا دم حنون زايد وكان داوين بدن بان raadiyay magaalada Muqdisho dhexdeeda dhaqaatiirtan oo indhaha qaabilsan nerve systemkii waxa la qaabilsan qoladan Turkiga xitaa waa u tagay ay doctor Shiina oo kale dhowr jeer u tagay madaxa scan la saaray oo daawooyin badan baa la siiyay adigu kulli waxba laga qaban waayay laakiin waxaan u maleynaa wadamadan oo horumaray Scandinavian-ka iyo maxay ahayd Jarmalka meelahaas wadamadan oo dhinaca caafimaadka ku horumaray India haddii meesha la qaadi lahaa mise la wadi lahaa kale waxaan u maleynayaa inay wax ka qaban karaan